Ma ogtahay in barashada luqad cusub ay kaa dhigi karto mid aad u caqli badan oo go'aan qaadasho leh? Barashada luqadda waxay sidoo kale faa'iido u yeelan kartaa caafimaadkaaga maskaxda iyo sidoo kale shaqadaada iyo noloshaada gaarka ah. Barashada luqad labaad waxay kaa caawin kartaa inaad la xiriirto oo aad la dhaqanto dadka ka yimid adduunka oo dhan. Waxaad sidoo kale aad u ogaan doontaa kala duwanaanshaha dhaqanka, waxaadna fahmi doontaa sababta ay kala duwanaanshiyahaasi u jiraan, waxaadna baran doontaa muhiimadda ixtiraamka dhaqamada aan ahayn kuwaaga oo keliya. Barashada luqaddu waxay dhiirigelin kartaa wadajirka waxayna wanaajisaa dulqaadka, taas oo lagama maarmaan u ah bulshooyinka dhaqamada kala duwan. Haddaba daawade muuqaalkan waxaan idiinku soo gudbin doonaa 10 luqadood ee ugu adag in la barto caalamka ee la socod wacan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaalo noocan oo kale ah. Mahadsanid. Kaalinta 10. Luqadda Kuuriyaanka. Luqadda Kuuriyaanku waa luqadda 10aad ee caalamka ugu adag in la barto ama lagu hadlo. Luqadda Kuuriyaanka waxaa ku hadasha tiro ahaan 75 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Kuuriyaanka waxaa lagu magacaabaa Hangul. Waddamada sida rasmiga ah looga hadlo luqadda Kuuriyaanka ayaa ah waddamada Waqooyiga Kuuriya iyo Koonfurta Kuuriya. Kaalinta 9. Luqadda Finnish. Luqadda Finnishku waa luqadda 9aad ee caalamka ugu adag in la barto ama lagu hadlo. Luqadda Finnishka waxaa ku hadasha tiro ahaan in ka badan 5 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Finnishku waa farta Laatiinta. Waddamada lagaga hadlo luqadda Finnishka ayaa ah waddanka Finland, waddanka Norway iyo waddanka Sweden. Kaalinta 8. Luqadda Vietnamese. Luqadda Vietnamese-ku waa luqadda 8aad ee caalamka ugu adag in la barto ama lagu hadlo. Luqadda Vietnamese-ka waxaa ku hadasha tiro ahaan 95 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Vietnamese-ka sidoo kale waa farta Laatiinta. Sida aad magacaba ka dheehan karto, waddanka laga hadlo luqadda Vietnamese-ku waa waddanka Vietnam. Kaalinta 7. Luqadda Raashiyaanka. Luqadda Raashiyaanku waa luqadda 7aad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. Luqadda Raashiyaanka waxaa ku hadasha tiro ahaan 150 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Raashiyaanka waxaa lagu magacaabaa Cyrillic. Waddamada lagaga hadlo luqadda Raashiyaanka ayaa ah waddanka Ruushka, waddanka Belarus, waddanka Kazakhstan iyo waddanka Kirgistan. Kaalinta 6. Luqadda Turkiga. Luqadda Turkigu waa luqadda 6aad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. Luqadda Turkiga waxaa ku hadasha tiro ahaan 75 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Turkigu sidoo kale waa farta Laatiinta. Waddamada lagaga hadlo luqadda Turkiga ayaa ah waddanka Turkiga iyo qaybo ka mid ah jasiiradda Qubrus. Kaalinta 5. Luqadda Boolish. Luqadda Boolishku waa luqadda 5aad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. Luqadda Boolishka waxaa ku hadasha tiro ahaan 50 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Boolishka sidoo kale waa farta Laatiinta. Sida aad magacaba ka dheehan karto, waddanka laga hadlo luqadda Boolishka ayaa ah waddanka Poland. Kaalinta 4. Luqadda Jabaaniiska. Luqadda Jabaaniisku waa luqadda 4aad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. Luqadda Jabaaniiska waxaa ku hadasha tiro ahaan 170 milyan oo dad ah. Luqadda Jabaaniiska ayaa leh 3 nooc oo farqoraaleed ah, waxaana lagu kala magacaabaa Hiragana, Katakana iyo Genji. Sidoo kale magacaba sida aad ka dheehan karto, waddanka lagaga hadlo luqadda Jabaaniisku waa waddanka Jabaan. Kaalinta 3. Luqadda Talaagu. Luqadda Talaagu waa luqadda 3aad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. Luqadda Talaagu waxaa ku hadasha tiro ahaan in ka badan 75 milyan oo dad ah. Farqoraaleedka luqadda Talaagu waxaa lagu magacaabaa sidoo kale Talaagu. Talaagu waa luqadda rasmiga ah ee ay ku hadlaan dadka ku nool gobolka Andhra Pradesh ee koonfurbari waddanka Hindiya. Kaalinta 2. Luqadda Carabiga. Luqadda Carabiga ayaa noqotay luqadda 2aad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. Luqadda Carabiga waxaa ku hadasha tiro ahaan in ka badan 300 milyan oo dad ah.
farqoraaleedka luqadda carabigu waa farta carabiga ah een badankeenu aynu wada naqaano. luqadda carabiga ayaa si rasmi ah loogaga hadlaa 26 waddan, gaar ahaan waddamada carabta. xagga waddamada qaarna looga hadlo si aan rasmi ahayn. luqadda carabigu Soomaali ahaan waxay noo tahay luqadaha noogu fudud inaan baranno, laakiin dadka kale uguma fududa barashada luqadda carabigu sida Soomaalida oo kale. marka adiga luqaddii kugu adkayd inaad barato ama aad is leedahay waa tan ugu adag in la barto, fadlan qaybta kommentiga nagula wadaag. kaalinta koowaad. luqadda Mandarin. luqadda Mandarintu waa luqadda aynu u naqaano luqadda Shiineeska, waana luqadda koowaad ee caalamka ugu adag in la barto oo lagu hadlo. luqadda Mandarin ama Shiineeska waxaa ku hadasha tiro ahaan 1.28 bilyan oo dad ah. farqoraaleedka luqadda Mandarin waa farta loo yaqaano farta Shiineeska. luqadda Mandarin ama Shiineeska ayaa si rasmi ah looga hadlaa waddanka Shiinaha, Taiwan, Hong Kong, Macau iyo Singapore. luqadda Mandarintu waa luqadda ay ku hadlaan dadka ugu badan adduunka.